ninkan aad arkaysaan niyad wanaagiisu waxa uu sababay in ka badan 50 milyan oo qof dhimashadooda. daawada magaciisa haddaan idiin sheego waxaa lagu magacaabaa ninkan Henry Tandy. ninkan Tandy leedha wuxuu ka tirsanaa askartii Ingiriiska. maalin maalmaha ka mid ah isagoo dagaal ku jira waxa uu arkay askari kale oo Jarmala kaasi oo hortaagan. kadibna waxa uu la soo baxay qorigiisii waana ku taagay. waxa uu doonayay inuu dilo askarigan kale, laakiinse markii uu arkay waxa uu dareemay askariga Jarmalkaahi inuu dhaawacan yahay. kadib askarigan Tandy lagu magacaaba waxa uu go'aansaday inaanu dilin askarigan oo iska fasaxo. qorigiina hoos ayuu u dhigay. askarigiina waa u baxsaday. go'aanka uu qaatay aad ayuu uga qowmeeyey markii dambe, maxaa yeelay waxa uu sabab u noqday dagaalkii labaad ee adduunka, kaasi oo ay ku dhimatay 50 milyan oo qof in ka badan. ninka Jarmalka ee uu iska sii daayana waxa uu noqday Hitler, kaasi oo markii dambe qisadan ka sheekeeyey. haddaba daawade, qisadan maxaynu ka baranaynaa? bal xagga commentiga nagula wadaag.